بسم الله الرحمن الرحيم kusoo dhawaada cashir aan ugu talagalay maanta inaan uga hadlo loobiska waliba qaasatan cashirkan maanta waxaan uga hadli doonaa for loop sidaan wada ognahay program kasta shaqeynaya intaasoo shaqo qabanaya kusoo laalaabanaya waxyaabaha inta badan la isticmaalo waa loobis haddii aan rabo in shaashada aan kusoo daawaco tusaale ahaan oo kale hello world hadda programkan haddii aan compile and run dhaho wuxuu isoo daawacayaa hal mar hello world haddii aan rabo programkan in aan shaashada kusoo daawaco 5 mar hello world compile and run and marka la dhaho 1 2 3 4 5 haddii aan rabo 10 jeer sidaan aan u qoro 50 jeer sidaan aan u qoro waxa waaye programka way la dheeraanaa teeda kale wuxuu iga qaadanaa intaasoo line aad ayaan ugu adag tahay haddii aan 1000 mar rabo in shaashada aan kusoo daawaco hello world oo kale way ugu adkaanaysaa markay saanta oo kale waxaa la isticmaalaa loobiska waana sababta loo isticmaalo loop tusaale ahaan waxaan isticmaalaynaa dhamaanta for loop aan ka hadli doonaa for waxaan leeyahay marka int I equal 0 semicolon I meeqa jeer aan rabaa 5 jeer aan rabaa soma I marka waxay ka yartaa aan leeyahay 5 sabab maxaa yeelay I waxay ka bilaabatay 0 moogta 0 ka bilaab ilaa 4 5 aan joogaa soma marka 5 ma gaarayo marka waxaan leeyahay marka I markasta hal igu dar sidoo kale I plus plus tan aan dhahay waxaan kaloo dhihi karaa I plus equal 1 sidoo kale waxaan dhihi karaa I equal I oo 0 ah hal ku dar I markasta hal ku dar kulli waa isku wada mid intaas oo dhan waxaan leeyahay marka kadib boodiga aan furay hadda programkan inta meeshaan dhahay marka fortan laga bilaabo ilaa intaan wuxuu kusoo laalaaban doonaa 5 jeer marka waxaan u baahanahay kaliya kan intaan oo dhan waa iska tiraa waxaan soo qaadanaa kan oo kaliya kadibna waxaan leeyahay inta paste kadib waxaan leeyahay compile and run wuxuu isoo daawacay 5 jeer 1 2 3 4 5 intaan qori lahaa 5 jeer waxaan qoray kaliya hal mar waxaana dhaxgeliyay loopka waxaan dhahay 5 jeer igu soo laalaabo marka fork sidan loo qoray maxay ka dhigan tahay marka programkan sidoo 5 mar uu soo daawaco hal mar hal jeer kaliya ayaan qoray shaashada ku soo daawac hello world marka ugu horeysa programka markuu inta marayo for wuxuu u fahmaa inaan isticmaalayo for loop kadib for loopka wuxuu leeyahay 1 2 iyo 3 semicolon markasto signed calaamadaha for loopka u gaarka ah waay marka ugu horeysa waxaan leeyahay marka intaan declaration ayaan ku samaystay waxaan sameeyay variable oo I ah aydan inta badan marka loobiska la isticmaalayo waa la isticmaalaa sababtan waxaa waaye I treat laga wadaa haddii aad rabto ka tagi kartaa ay xaraf ay variable name ayaa u qaadan kartaa waxaan ku shubtay marka ugu horeysa 0 ayda qiimaha ugu horeey ee qaadatay waa 0 kadib programka toona gudaha soo gelin oo shaashada ii daawicin wuxuu hubinaa marka I conditionkan true miya ama false miya true haddii noqoto gudaha ayuu soo galaa loopka waxyaabaha dhexdiisa aan ku qoray dhan ayuu iyada daawaca haddii ay false noqotana ma soo galay marka ugu horeysa I 0 waxay ka yartahay 5 sax ay noqonaysaa kadib true ay noqonaysaa gudaha uu soo galaa hello world ayuu marka ugu horeysa ii daawaca kadib markuu daawaco wuxuu aadaa marka ayadiyo wuxuu ku sameynaa update increment uu ku sameynaa hal qiimo ayuu ku daraa marka hore ay waxay aad 0 hadda waxay noqonaysaa 1 kadib hal haday noqoto wuxuu leeyahay marka hal ma ka yartahay 5 kadib gudaha soo gala ha sax ay noqoto soo ma kadib intuu soo galaa uu daawaca haddana ay hal kale ku daraa laba noqonaysaa 2 ma ka yartahay 5 kadib haddana gudaha soo galaa uu daawaca marka la inta socona marka 4 markay marayso wuxuu leeyahay 4 ma ka yartahay 5 ha oo daawaca marka meeqa mar oo daawacay 0 labo kow 0 kow labo 3
iyo afar waa shan mar sooma markaas kadib afar hal uu ku daray shan ay noqonaysaa intuu imaana ay shan ma ka yartaa shan maya shan kama yar shan false ayuu noqonaa sidaas ayuuna ku istaagaa programka oo shan jeer kaliya igu soo daabaca haddii aan rabo 20 mar sida noqonaysa meeshan kaliya ayaan 20 leeyahay 0 ilaa 19 waa kana for loopka sidaa ayuu u shaqeeyaa markasta inaan saan u qoro hadda uu qoran yahay inaan dhaho intii I is equal 0 semicolon I less than saas ay qiimaha ugu darsaan ma markasta u qoraa maya waxaan kaloo samayn karaa qiimaha dhan ayaan qaadi karaa waxaan geey karaa kor waa kan weliba tan waa soo qaadi karaa haddii aan rabo waxaan geyn karaa hoos maxaa yeelay kan marka ugu horeysa hal mar kaliya ay dhacaysaa markastana qiimahan checkna lagu sameeyaa markasto kadibna markastana inta qiimo ayaa lagu diraa hadda programkan haddii aan dhaho uu shaqeynaa ha intaas uu kala ka tagay programkan haddii aan dhaho oo ii shaqeynaa sidiis 20 jeer ayuu soo daa 20 ay badan tahay shanteena inooga dhig si aan u fahanno 5 jeer ayuu shaashada ku soo daabacaa waa ka for loop sidaas ayaa loo qorin karaa inta markasto check ku sameeyo hadda muxuu sameeynaa marka ugu horeysa intuu imaana I 0 oo ku shubo sama qiimaha I hadda 0 way intuu imaana I ma ka yar tahay 0 ma ka yar tahay 5 ha sax noqon intuu imaana qiimiga ku dara kadib I update ku sameeyna hal ku dara meeqa noqon marka I 0 marka hore ahayd hadda hal ku dar hal noqon sama kadib intuu imaana hal ma ka yar tahay 5 ha uu daawaca haddana hal kala ku dar labo ma ka yar tahay 5 oo daawaca ilaa afar markay marayso afar hal ku dar 5 ay noqonaysaa 5 ma ka yar tahay 5 ma uu istaagaa barnaamijka sidaas ayuu for loop u shaqeeyaa waxaan rajeynayaa cashirka boobsiisa ayuu ahaa aad ayuuna u fududaa inaa fahanteen waxaan idin leeyahay fi amaan illah